halkani waa beerta Ahmed Roba Green Cave halkani oo ah meel quruxda iyo mataqaana damaashaadka loo imaado magaalada Toronto ayaa maalmaha ciida waxaa imaada dadyo kala duwan sidoo kale waa meel dalxiis oo aad u qurxan waxaa garabkayga taagan maareeyaha beertan marka soo dhow maasha Allah Mr. Inday marka hore waa ku salaamayaa waan inkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aad noo soo booqateen adiga tiimkaaga kusoo dhawaada marka hore kusoo dhawaada in leeyahay beerta Ahmed Roba Green Garden Cave saa u jeedaanba meesha waxaa ka muuqda ama joogo dad badan dadyo aad u badan oo iskugu jiraan caruur ii sheegay dhalinyaro maamooyin marka dad badan baa meesha ku sugan maasha Allah marka soo dhawaada in leeyahay marka beertan dadka imaanshahooda ka waran bal xilliga damaashaadka iyo farxadda iyo waxyaabahaas wallahi horta dadkii maashahoodii maalinta ciidan meeshaan furnay maalinta ciid ilaa hadda maasha Allah wallahi subaxisa u soo istaagno qorraxda noogu dhacday meesha iyadoo annagoon fariisanin anoon ii sheegay dabada dhulka dhigan dadka saas u taagan yihiin oo ugu adeegeena maasha Allah marka aad bay u badan yihiin dadka imaanaya meeshaan subax ilaa habeenkii saan u socdaan ilaa maqrib 12 saana u imaadaan maasha Allah marka ka waran bal dadkan ka waran bal maadaama beertan aad loo imaado waxyaabaha dadka ay ka helaan maxaa kamid ah wallahi horta waxyaabaha dadka ay ka helaan waxaa kamid ah koow horta meeshaan marka hore qorshahan ugu talgalnay wuxuu ahaa horta cooskan aad u jeedid waxaan diyaarinaynay muddo 6 bilood ah inay meeshan cagaar noqoto qurux badnaato horta in badan ay ka shaqeynaynay waxaasna waxaan ugu dheliyay waxay ahayd fikirka noocan ah maadaama dhalinyartii magaaladii ay sheegay inta ugu rooneed iyo familkii caruurihii inta badan maalmaha ciidii waxaas maadaama ay ugu gudbayaan dhinacan dowladda Soomaaliya bahalkii marka waxaan qorsheysanay in meel qurux badan sawiraan lagu galo oo lagu nasto jawiga lagu degsado inaan meesha ka sameyno marka maasha Allah tiidaan Ilaahay uu nagu guuleeyay maanta alxamdulillah marka maxaa cabitaan iyo waxyaabahaas maxaa yeelay waxyaabaha dadka ay cabaan wallahi dadka waxay cabaan waxaa yaala juice yaalo sida cambihii babaaygi maangihii intii magaalo laga helaa sida juice caruurtan waxaa u yaala buskudi caanaha loo shiidaa juiceska yaraa caruurta yaalo marka waxyaabo badan ay ka helaan waxyaabay ku ciyaarayaan xitaa way yaalaan wiifo yaalo baaskil u yaalo showerka yaraa caruurta u yaala marka waxyaabo badan marka insha Allah intaan ka badan waa sii rajaynaa hadii Ilaahay marka beertan qofka aan garanaynay videogan daawanaya halkay ku taala beerta Ahmed Roba wallahi beerta waxay ku taala dhinacan magaalada Keelag loogu soo galayo qaybta waqooyi kaga xigta magaalada Doloado aadeen ugu dhowdahay Keelag gadaashiis dambe ku taala marka beerta Ahmed Roba kulli bajaajo dhan way garanayaan Ahmed Roba Green Garden Cave boorkiisa waa aragtaa u maleynaa markii sheegay hadda dadkii oo dhan way barteen xitaa bajaajiya garanayo dhanka waqooyi magaalada kaga taala marka Ahmed Roba Green Garden Cave igeedii la bajaaj toos ku keenay insha Allah marka hadda maadaama aan aragnay bilicdeedii wanaageedii quruxdeeda maxaa idin qorshaysan mustaqbalka soo socda aad ku soo kordhinaysan wallahi horta qorshaha marka hore aan sidaa u bilaabnay hadda si qurux badan buu u dhacay marka sidii hore hadda ka qurux baday marka hadda insha Allah dadaalkeen inta kuma yaro inaan meeshan intaan ka sii ballaarino sii qurxino geedii sii abuurno waxidii badino ii sheegay marka taayada noo qorshaysan sidoo kale waxaa microphone kala dhex qaadnay dadyoogii kala duwanaa ee halkan dalxiiska iyo damaashaadka u yimid ka waran dareenkaada ku aadan maashaha beertan dalxiiska maanta ay maatay wallahi maanta dareenkayga lama soo koobi karo quruxdan shaxshaxdana u jeedid meeshana ka dambeysay ka waran bal dolow maadaama ay beer dalxiis qabi jirin maanta maxaa dareentay markaad beertan imaad markii ugu horeysay horta ha wallahi markii ugu horeysay ka waran bal marka awal beer dalxiis maadaama aad arki jirin meel kale loo aadi jiray sideed u aragtaa marka ku faraxsanahay dadka aan weli arkin baraha bulshada ka arka beerta maxaad ku leedahay waxaan ku dhihi lahaa lagu soo yaaco yaa lagaaga hormarin welcome aad umaasan ka waran dareenkaada ku aadan maanta maadaama beertan ay imaaday quruxdeeda iyo bilicdeeda maadaama beer dalxiis tahay sideed u aragtay wallahi horta beertaanida horta bulshada aad ay ugu baahneen magaalada Doolow ku sugan inkastoo beertaanida haddadaanida oo haddadan ay cusub tahay saasay tahayna beer hore u sii jirtay laakiin waxaan jeclaan lahay in tayadeedana aad loo wanaajiyo la balaariyo waxaan hadda bulshada ugu baaqayaa inay beertaanida aad fiidiyodeedii sawiradeedana aad ay u qurux badan
inaan la mooganaanin mar walbana loo dalxiis imaado habeen iyo maalinna way furan tahay xilli walba xilli allaale xilli aad jecesha ilaa habeenkii halka saac iyo bar 2 saac waa ku gaari kartaa markii yaa la mooganaanin bulshada maadaama ay beer dalxiis oo saas u qurxan ay qabi jirin magaalada doolow beertaan la sameeyey maadaama aad inay kaamirmaan tahay bal ka waran fiidiyowada iyo kaamiradaas iskugu soo baxaya wallaahi horta beenkuma sheegaayo fiidiyowada baashaan kaamira oo beertaanida lagu duubay aad iyo aad ay u sarreysaa fiidiyowadeeda bilicdeedana marka aad iyo aad ay u qurux badan tahay fiidiyowyada aan maanta daanayda aan ku duubay sawirada aan ku qaadin insha Allah waa baraha bulshadana waa soo gelin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo TikTok-geygana soo gelin doonaa aad ay u qurux badan lagama sheekeyn karaan ku dhahay insha Allah bulshadana yaa la mooganaan xilli walba beertaanayda inay u beeneeto insha Allah ka waran bal maanta dareenkaada ku aadan imaashaha beertan dalxiiska والله beerta lagama sheekeyn karo meel dalxiis marka hore doolow ma lahayn laakiin hadda dadka nooga furay mahadsan yihiin dadka doolowna xaleer magaal iska dhig soo yaaca ay ka waran bal maadaama meeshaan imaaday waxyaabaha meeshaan lagu cabay iyo quruxda meeshaan iyo bilicda iyo sawirada aad ku gashay ka waran bal lagama sheekeyn karo another level waay soo yaaca marka maxaa leedahay marka dadweynaha ku daawanayo oo weli beertan arkin xilli maxaa leedahay والله wax badan aan iga maqan soo yaaci maada waqti qaata